warbixin uu soo saaray midowga Afrika ayaa lagu sheegay in midowga ay ka go'an tahay la dagaalanka eedeymaha la xiriira musuqmaasuqa, maamul xumida, dhibaatooyinkii faragelinta siyaasadeed. Arrintan ayaa waxay daba socotaa eedeymo tixana ah horey lagu eedeeyay AMISOM in ay sameysay wax ka baxsan howlgalka nabadeed oo ay u joogaan Soomaaliya. Warbixin gudaha oo ay soo saartay midowga Afrika amba AU waxa ay ku dhaleecisay Francisco Madera in uu si xun ula dhaqmay shaqaalaheeda ku sugan Soomaaliya iyo bixin la'aanta adeegyo muhiim ah iyo isticmaalka hadallo xanaf leh oo kala geyn kara bulshada Soomaaliyeed. Arrintan ayaa salka ku haysa kadib markii qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay ka codsadeen midowga Afrika in dib loogu yeero Francisco Madera oo diblomaasi u dhashay Mozambique ahna safiirka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya. Mandera waxa uu yiri dhowr jeer in AMISOM dhexdhexaad ay ka noqon doonto khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya siyaasiyiinta Soomaalida, laakiin taasi kama aysan turjumin ficiladiis ayaa lagu yiri warbixinta la soo saaray oo isbuucii la soo dhaafay laga soo xigtay madaxa falanqaynta ciidamada howlgalka AMISOM ee Walter Zama. Mandera waxa uu soo bandhigay maamul maareyn sidoo kalena qaab hogaamineed aad loogu garto cabsi, tuhun, hanjabaad, musuqmaasuq, nacayb, cagajugleyn iyo cabsi gelin. Ayay warbixintu intaa raacisay iyagoo ka digay haddii aan laga baaqsan ficiladaas in howlgalka ku guul dareysan doono inuu adeegsado mowqifkiisa si uu u taageero geedi socodka siyaasadeed ee Soomaaliya. Mandera wuxuu madax ka ahaa AMISOM tan iyo sidoo kale bishii Janaayo sanadkii 2016 markii uu bedelay diblomaasiga reer Tanzania ee Agostina Mihiga oo ah wakiilkii gaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya. Iyadoo madax howlgalka markii lagu soo doortay inuu gacan ka geysan karo xasilinta geeska Afrika, balse aragtida shacabka ee Mandera ayaa dhalisay muran badan ayaa sidoo kale lagu yeeray warbixinta. AMISOM oo la galay sanadkii 2017 waxa ujeedka loo aasaasay ahayd inay gacan ka geysan karto ka guuleysiga Al-Shabaab. waxaana ku midaysan 5 dal waxayna kala yihiin Kenya, Uganda, Burundi, Djibouti iyo Ethiopia. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in AMISOM ay door muhiim ah ka ciyaareen nabadeynta iyo dhismaha dawladnimada iyo xasiloonida ballaaran ee Soomaaliya. Laakiin warbixintu waxay intaa ku dartay in hoggaanka AMISOM uu si joogto ah faragelin ugu hayay siyaasadda Soomaaliya, isagoo inta badan garab istaagaya dawladda federaalka amba si fudud u eegaya geeska marka lagu tunto xuquuqda shacabka. Toddobaadkii hore xildhibaan ka tirsan dawladda ayaa dalbaday in shaqada laga eriyo Mandera oo la sheegay inuu faragelin ku hayo arrimaha gudaha ee dalka. Francisco Mandera ayaa si gaar ah lagu eedeeyay inuu ku dhaxmilmay siyaasadda dawladda hadda jirta, iyadoo muran badan uu dhaliyay hadal golaha amniga uu ka horsheegay oo ku aadaneyd heshiiskii dhexmaray madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo siyaasiyiintii ka soo horjeeday. Xasan Nasiib Maxamed, Radio Banaadir.